بسم الله الرحمن الرحيم في دون أكسن قطبضها وركوده وجوا وين وحى كمدا دوق مقدشة وشق جوجين كسمية قدومي كحجين كي هولها جودة قبل كبنادر إثيوبيا وصوصة تقارير موجين سين سنة عقون سنين صوماليا دبليو هبسن وقلبت مسجد كل حدرنين نبضونها يا الشباب ووير صف بلارن كو قادة دجان كقوقاني معمولة هيرشة بالله تشبلن وعدي موقف كده كوادن قوان كي وزارة دارمها جودها الصوماليا إلى حريرات دور شوين كم وزارة وحبرشة الصوماليا وما نتبري qaadaysa imtixaankii fashilmay dugsiyada sare maamulka magaalada beledweyne oo lagu eedeeyay in musuqmaasuq ay ku sameeyeen raashin lagu talagalay dadka barakacyaasha ah madaxweynaha Puntland oo faahfaahin ka bixiyay safar shaqo uu ku aaday dalka Shiinaha sarkaal loo haysto gobodfallo ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia xabsiga loo taxaabay iyo ciidamada ilaalada xeebaha Maalta oo badbaadiyay boqolaal ruux muhaajiriin ah markale fiid wanaagsan waa 26 bisha May 2019 u diyaar garow warkaas oo dhan duqa magaalada Muqdisho ayaa shaqo joojin ku sameeyay gudoomiye ku-xigeenkii howlaha guud ee gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa shaqo joojin ku sameeyay gudoomiye ku-xigeenkii howlaha guud ee gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiido wareegto ka soo baxday gudoomiye ku-xigeenka wareegto ka soo baxday gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Injineer Yariiso ayaa waxa lagu sheegay in gudoomiye ku-xigeenka shaqada laga joojiyay uu sameeyay amar diidmo iyo shaqo curyaamin oo ka waday qaybta howlaha guud iyo waliba nadaafada gobolka sidoo kale waxa lagu eedeeyay in shaqo joojin uu ku sameeyay agaasimaha waaxda qorsheynta iyo waliba injineeriyada isla markaana aanu lagala tashan sidoo kale waxa uu sheegay in uu bixiyay amarka sidoo kale waxa la sheegay in gudoomiye ku-xigeenka uu bixiyay uu shaqada ama amar lagu joojinayo mashruuc lagu dhisayo garoonka qoob dooro ee degmada Karaan wareegtada ka soo baxday duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu hogeysiiyay xogayaha gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ra'iisul wasaaraha iyo waliba xafiiska madaxweynaha oo warqada la gaarsiiyay Ethiopia waxay soo saartay qariirad muujinaysa inaysan aqoonsaneen Soomaaliya taas oo maanta si weyn loogu hadalhayay ama si weyn loogu falcelinayay baraha bulshada Faisal Cabdillaahi ayaa warkan faahfaahinaya website-ka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa la soo dhigay maap ama qariirad la yaab leh oo si cad ugu xadgudubtay madax bannaanida iyo qarannimada Soomaaliya qariiradan oo ah tan qaaradda Afrika ayaa gabi ahaanba laga tiray Soomaaliya oo sida muuqata lagu daray Ethiopia laguna muujiyay qariirada in Soomaaliya ay ka tirsan tahay Ethiopia waxaa sidoo kale la yaab leh in Somaliland laga reebay dhulka Soomaaliyeed ee Ethiopia ay ku darsatay sida ka muuqata qariirada isla markaana Somaliland laga dhigay dal madax bannaan oo ka tirsan Afrika lama yaqaan sababta Ethiopia ay sidan u sameysay iyo ujeedada laga leeyahay balse waxa cad in hamigii Ethiopia ee mar in ay baabi'iso Soomaaliya ah kuna darsato dalkeeda uu bannaan ka yimid ha noqoto ku talagal mise sir fakatay arrintan ayaa imaanaysa iyada oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si aad ah isugu dhiibay dawladda Ethiopia gaar ahaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isaga oo rumaysan in isbahaysi uu la sameeyo ay muhiim u tahay dawladnimada Soomaaliya saacadihii la soo dhaafay oo qariiradan ama maapkan baraha bulshada si weyn dadka Soomaaliyeed ay ugu falanqeynayeen ayaa waxa isbedel durba wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ay ku sameysay maapkii ay soo gelisay boggeeda taas oo muujinaysa in si dhow ay ula socoto hadalhaynta iyo siyaasadaha kala duwan ee Soomaaliya waxaana ay ku bedeshay mid kale sida website-ka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia laga daalacan karo dadka Soomaaliyeed oo si weyn uga carooday falkan ayaa aragti ahaan isku dhaafsanaya in dawladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in si degdeg ah arrintan ay uga jawaabto maadaama dawladda Ethiopia si cad oo bareer ah ay ugu xadgudubtay madax bannaanida Soomaaliya maadaama qariirada ay soo bandhigtay ay muujinayso in Soomaaliya uusan ahayn dal jira isla markaana
ay ka dhigtay dal ama meel ka tirsan Itoobiya waxaase arinta la yaabka leh oo dadku aad u hadalhayaan ay noqotay in Somaliland ay u aqoonsatay dal madax bannaan oo ka tirsan qaaradda Afrika sida lagu muujiyay qariirada ama maabka website-ka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya lagu soo bandhigay. dabli hubeysana galabta waxa ay masjid ku yaala degmada Yaaqshid ay ku dhex jireen nabadoon ahaa warkaas iyo warkalo la xiriira al-shabaab oo weerar saf ballaaran ah ku qaaday deegaanka Qooqaani waa kan wariyana Maxamed. dabli hubeysana ayaa galabta liiqay waxa ay xaafadda Joongalka oo ka tirsan degmada Yaaqshid ay ku dileen nabadoon caan ahay. nabadoonka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Allah oo naxariistay nabadoon Ibraahim Cariif oo isagu uu ku dhex jiray masjidka Sheekh Xasan Cali Cadde oo xaafadda Joongalka dabli hubeysan ay ku dhex dileen. dadka deegaanka ayaa sheegay in ay xilliga nabadoonka la dilayay in uu akhrisanayo kitaab isla markaasina laba nin ay dhalinyaro ahay ay geysteen falka dilka nabadoonka. kooxda ka dambeysay dilka nabadoonka ayaa goobta isaga baxsaday kadib markii ay dileen nabadoonka oo rasaas madaxa ay kala dhaceen. lama oga sababta loo dilay nabadoonka iyo waxa ka dambeeyay oo galabsaday balse dilkaani ayaa waxa ku soo aadaya iyadoo oo Muqdisho maalmahani ammaankeedu ahaa mid hagaagsan. dhanka kalena al-shabaab ayaa sheegtay in ay weerar saf ballaaran ah ay ku qaadeen deegaanka Qooqaani oo hoostiga degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. shabaab waxa ay sheegteen in ay dagaal ay kula galeen fariisin ciidanka Jubbaland iyo kuwa Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Qooqaani. dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqleen jugta madaafiicda iyo rasaasta xooggan oo ay isku adeegsanayaan labada dhinac. ilaa iyo hadda si dhab ah looma oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalka maadaama ay adag tahay in la helo xogta ku saabsan dagaalkaasi. saraakiisha ciidanka Jubbaland ayaa sheegeen in ay iska difaaceen shabaabka soo weeraray deegaanka isla markaana aanu jirin khasaare ka dhashay khasaare dhankooda soo gaaray. waa markii labaad oo ururka al-shabaab ay weeraraan ama weerar ku qaadaan deegaanka tan iyo markii ay la gudagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. qeybaha kale wararkan waxaa ka mid ah maamulada Hirshabelle iyo Jubbaland waxay ka soo horjeesteen warqadii ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ay kaga hadlashay doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Galmudug waliba Jubbaland. maamulka Jubbaland ayaa goor dambe oo galabta ah waxay soo saareen warqad cad ay ku sheegeen inay kaga soo horjeedaan warqada ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ayna sheegeen inay u madax bannaan yihiin. wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa akhriyay mowqifka maamulka Jubbaland ee ku aadan doorashada. dowlad goboleedka Jubbaland waxay diyaar u tahay in ay qabato doorashooyinka hordhac hanaan xor iyo xalaal ah ujeedaduna tahay in la xaqiijiyo xaqa muwaadinka reer Jubbaland uu u leeyahay in la doorto waxna uu doorto sida ku cad qodobka 25aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland. haddaba qodobada 142 ama 142 120aad iyo 120aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dowladda federaalka waxay si cad u qeexayaan xuquuqda dowlad goboleedyada sida hoos ku qoran. qodobka 142 dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee ka jira Soomaaliya ilaa inta la gaarayo goorta dhammaan dastuurka dowladaha xubnaha ka ah federaalka la waafajinayo dastuurka dowladda federaalka ah iyo maamulada ka jira ka hor inta aanan la qaadan dastuurka ku meel gaarka ahi waxa ay sii haysanayaan awoodaha dastuurkoodu siinayo. dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah waa in ay la tashadaan marka la qaadanayo go'aan la xiriira nidaamka federaalka iyo qaabka nabadgelyada. qodobka 120aad hay'adaha dawliga xubinta ka ah hay'adaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaal dhismaha laamaha sharci dejinta iyo fulinta ee maamulada dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah waa arrimo lagu nidaaminayo dastuurka maamul goboleedyada. qodobka 120aad mabaadi'da dastuuriga ah mabdi'iyan waa in la iswaafajiyaa dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dastuurka dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka. haddaba wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland waxay cadeynaysaa in ay u madax bannaan yihiin xalinta inay u madax bannaan tahay xilna ka saaran yahay
in ay qabato doorashooyinka xor iyo xalaal ah, doorashooyin xor iyo xalaal ah ee ka dhacda dowlad goboleedka Jubbaland. dhinaca kale maamulka Hirshabelle qudhooda qoraal ay maanta soo saareen oo ay ku cadeeyeen mowqifkooda ku aadan go'aanka wasaaradda arrimaha gudaha ee doorashooyinka. waa kan go'aanka maamulka Hirshabelle waxaa soo koobaya wariyeen Cabduqaadir Jakarta. kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ay xalay soo saartay habraaca guud ee doorashooyinka dowlad goboleedyada ayaa waxaa ka soo horjeestay maamulka Hirshabelle oo noqday maamulkii labaad ee qaadaca, waxaana ka horeeyay maamulka Galmudug oo shaaca ka qaaday in habraaca guud ee doorashada dowlad goboleedyada oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya lagala tashan. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dastuurka maamul goboleedka Hirshabelle ayaa walaac looga muujiyay go'aanka wasaaradda arrimaha gudaha, waxaana lagu sheegay in habraacaas uu yahay mid baalmarsan nidaamka federaalka iyo midka dimuqraadiyadda dalka. war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha dastuurka ayaa lagu yiri kadib markii aan aragnay dastuurka ku-meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobkiisa 120aad ee qeexaya hay-adaha dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka, markii aan aragnay qodobka 25aad firqadiisa 4 ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle, markii aan aragnay qodobka 20aad ee farqooyinkiisa koowaad iyo labaad ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle, markii aan aragnay qodobka 61aad farqadiisa 4aad xarafka D kaas oo qeexaya sharciga guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle. wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle markii aragtay qodobada kor ku xusan waxa ay walaac fara badan ka muujinaysaa warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee soo baxday taariikhda kor ku xusan inay baalmarsan tahay hanaanka federaalka dowlad wanaagga iyo daadejinta nidaamka dimuqraadiyadda dalka, waxayna sidoo kale ka hor imaanaysaa dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo dhammaan shuruucda kale ee dalka u yaala, ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedka Hirshabelle. maamulkii labaad ayuu noqday maamulka Hirshabelle ee ka hor yimaada go'aanka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ee ku aadan habraaca guud ee doorashooyinka dowlad goboleedyada, waxaana ka horeeyay maamulka Galmudug oo sheegay in aan lagala tashan. Cabduqaadir Jakarta waxa uu soo koobaya qoraalkii ka soo baxay wasaaradda dastuurka ee Hirshabelle ayna ka soo horjeesteen go'aankii shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ay kaga hadashay doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Galmudug iyo Jubbaland. walise waxaan ka hadlayn Koonfur Galbeed iyo waliba Puntland. madaxweynaha Puntland xaqiisa hadii aan eegno maanta ayuu ka baxay Puntland waxaanu ku sii jeedaa dalka Shiinaha, halkaas uu sheegay in safar shaqo uu ku tagayo intuusan ka bixinayo la hadlay wuxuu kula hadlay wariyaasha garoonka diyaaradaha, wuxuuna sheegay in ujeedka ugu weyn halka uu tagayo ay tahay howlo mashaariic ah oo la doonayo in deegaanada Puntland laga fuliyo. madaxweynaha uu ka hadlayay muhiimadda safarkiisa ayuu ku dheeraaday arrimaha muhiimka ah ee daran ama socdaalkiisa waliba xubnaha kale ee ku weerinaya dalka Shiinaha u raacaya. madaxweynaha ayaa sheegay in dalal badan oo saaxiibo la ah Puntland markaan la doonayo in ay la sameeyaan ama ay ka soo dhameeyaan mashaariic badan oo lagu horumarinayo deegaanada Puntland. waxaan aad ugu faraxsanahay dalalka adduunka ee danaynaya Soomaaliya inay maalgeliyaan si dhaqaalahooda u qabco, in ay yimaadaan iyagoo wadooyinka sharciga ah iyo nidaamka dawliga ah u soo maraya. dowladda Puntland waxay ballan qaadaysaa in ay intii karaankeeda ah dadka jecel inay maal gashtaan si ay ummadda reer Puntland ugu faa'iideeyaan iyaguna ugu faa'iideystaan, inaan wax cad oo iyaguna isku halayn karaan annaguna aan ku naaloon karno isku halayn karno ay ka soo baxaan. waxaa sidoo kaleeto jecelnahay inaan ugu yeerno iyaga iyo bandamadii hore aan u tagnaba shirka maalgashiga ee Puntland ka dhacayo oo aan ragno khayraadka dihin ee dalkan leeyahay ee fudud, khaasatan dhinaca kalluumaysiga iyo beeyada iyo waxyaabaha la xiriira wax soo saarka, in aan noqoto meelaha u muhiimsan ee la maalgelinayo. sidoo kale badeecad badan oo aad u sahlan oo samaynteedu halka ku sahlan tahay oo ganacsatada reer Puntland dib badan ka qaabsada inay dibadda ka keenaan baa jira. waxyaabaha yaryarka aana sidii gudaha loogu farsamayn lahaa ayaan ujeedadeenu tahay. oo
ugu dambeyntiina wararka Soomaalida ka baxsan haddii aan eegno ciidamada ilaalada xeebaha Maalta ayaa badbaadiyay 100 ruux oo muhaajiriin ah kuwaas ilaa hadda la aqoonsan dalalka ay ka soo jeedaan ciidamada ilaalada xeebaha ee Maalta ayaa badbaadiyay 216 ruux oo isugu jira qaxooti iyo waliba muhaajiriin kadib kolkii ay iskaga ayagoo la socday laba dooni oo laga helay badweynta jasiiradda ku taala afyeen oo hadlay ciidanka ilaalada xeebaha ayaa sheegaya in maalnimadii Jimcaha ay labadaas dooni laga soo qabtay meel koonfurta kaga beegan Maalta kadib howlgal ciidanka ay kooxaha heeganka ku jira ay sameeyeen dadka la badbaadiyay ayaa lagu soo waramayaa inay ka mid ahayd haweeney uur leh iyo caruur kuwaas ilaa hadda aan la aqoonsanin ama la xaqiijin dalalka ay ka soo jeedaan cimilada oo degan awgeeda ayaa sababtay in labadii cisho ee ugu dambeysay ay bataan dadka ka soo hayaamaya dalalka Liibiya, Tanzania iyo Algeria waxaana magaalooyinka dalkaas ay ka soo carareen ay 12 cisho ee ugu dambeysay ay soo gaarayeen xeebaha Maalta dadkan ayaa ah kuwa u badan qaxooti waliba kuwa kale oo ka soo jeeda qaaradda Afrika sida warbixintan lagu xusay inkastoo aan la xaqiijin ilaa hadda dalalka ay ka soo jeedaan dadkan la badbaadiyay tirahana gaaraya 216 ruux warkii fidnimada wanaagintaas